Dhacdo cajiib ah oo qabsatay dhammaanba social media-ha. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa lagu bahdilay social media-ha iyo welibana fagaaro uu markaas joogay dad badanna ay ku sugayeen. Macron ayaa waxa uu joogay kuna sugnaa waqti xaadirkaas bahdilaada lagu sameynayay. Meel ay ku sugnaayeen bulsho yar oo kooban oo sugisay Macron amase madaxweynaha Faransiiska. Goobtaas dadkii ku sugnaa mid ka mid ah ayaa waxa uu ku dhuftay dharbaaxo aad u kulul madaxweynihii Faransiiska amase Macron. Ninka ficilka ku dhaqaaqay ayaa lagu eedeynayay in uu ka jarayay aflagaadadii uu u geystay nabigeena suuban naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Ninkaas waxaa ka muuqatay cadho fara badan wejigiisa iyo xanaaq aad u badan. Dharbaaxada uu ku dhufanayay madaxweynahana waxa ay muujinaysay ciil fara badan inuu qabay qofkaasi. Soo dhawow daawade si aad muuqaalkan u dhamaystirato fadlan nala joog ilaa iyo dhammaadka fiidiyowgan. Waa anigoo ah Nadra Siciid. Run ahaantii bahdilaada lagu sameeyay madaxweynaha Faransiiska muuqaalkan laga duubay ayaa waxa uu haystaa dhammaanba social media-ha. Muuqaalkan ayaa waxa dhammaanba falanqeynaya siyaasiyiinta caalamka iyo bulshada inteeda kale. Dadka qaar waxa ay sheegayeen ninkan dharbaaxada ku dhuftay inuu ahaa nin muslina oo kana xanaaqsanaa Macron markii uu u gafay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Madaxweynahan oo ku gafay islaamka iyo welibana nabigeena suuban naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Dharbaaxadan ku dhacday Macron iyo welibana bahdilaadan ayaa lagu sababeynayaa in ay tahay gafkii uu u geystay nabigeena. Ninkan oo ficilkaas sameeyay dharbaaxadana ku dhuftay madaxweynaha ayaa waxa la sheegay inuu ka xanaaqsanaa gafkaas uu u geystay dhammaanba muslimiinta. Macron oo aan filanaynin haba yaraatee dharbaaxadaas arrinkani waxa uu ku noqday la yaab iyo welibana mucjiso. Sida oo kale madaxweynahan ayaa muddo ka hor waxa uu wajahay cunaqabatayn aad u adag oo uga timid dhanka islaamka iyo wadamada islaamka. Sida oo kale waxa uu yeeshay mucaarid aad u fara badan oo neceb ninkan. Macron waxa uu wajahayay dhaliilo aad u fara badan iyo welibana eedeymo uga imanaya dhanka dowladaha islaamka ee awoodda lahaa iyo welibana qof kastoo ka xumaa gafkii uu u geystay islaamka. Run ahaantii madaxweynaha Faransiiska waxaa ku dhacday arrin aad iyo aad u argagax badan oo aanu filanaynin. Aad ayuu uga cadhooday isagoo ka xun bahdilaada intaa la eg iyo falxumadaas soo gaadhay. Arrintan ayaa noqotay mid cajiib ah oo laga hadalhayo dhammaanba wadamada islaamka iyo inta kaleba. Sida oo kale dhacdadan ayaa lagu eedeynayay in ay ka dambeeyeen koox mucaarid ah oo aad uga soo horjeeday Macron iyagoo la sheegay inay isku dayeen in ay fuliyaan dil qorshaysan. Waxa la sheegay inay u soo badheereen wax kasta oo ku dhaca. Muhiimadooda ayaa ahayd Macron in ay waxun gaarsiiyaan. Haddaba daawade su'aalan ku weydiiyo arrinkan ku dhacay madaxweynaha Faransiiska sidee ayaad u aragtaa? Miyuu istaahilaa oo waajibkiisii ayaa la mariyay mise talow waa lagu gafay? Fikirkaagu waa noo muhiim nagula wadaag xagga kommentiga. Waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa dhammaadka muuqaalkan. Fadlan muuqaalkan haddii aad ku faraxsan tahay madaxweynihii ku gafay nabigeena ha ka ilaawin inaad share garayso muuqaalkan adigoo asxaabtaada la wadaagaya. Sida oo kalena like saar.